سكاشك markii dawladdu burburtay oo dagaalada sokeeyay ma jireen horta wax dagaalo sokeeya dagaalka ka dhacay taariikhdaas ka dhacay marka laga soo bilaabo dagaalo sokeeya oo maalmooda waa jireen dhibka hayay wuxuu ahay burcad waxa la yiraahdo ayaa hayay oo aad ugu farabadnay amba tuugada dadku yaqaaniin ayaa ugu farabadnay dagaalada kale waxay ahayd dagaalo sokeeye oo gaagaaba xaf marna lagu maray oo dadka meelo badan haysto amba yacni maaragtaa qaybta muqdisho dhinaceed amba baydhabo iyo dadka waxa dhacayay mar bayna mareen maalin laba maalmoodayna kala raacdeen waxaan haysana naga dhaceen horey noo gudbeen muqdisho iyo dhulkaasi u gudbeen waa gartay dagaaladaas inta ka dhacay sidee qaabkee loo xaliyay maxaase soo baxay wixii dagaal maray ma rabo kuwa yaryarka ama burcad ha sababsho ama sabab kala dhacay deegaankan dadka ka dhaca sidee loo xaliyay qaabkee xalka dagaaladaas waxaa jira odayaal dhaqameedyo badan iyo culumaatiin iyo ugaasyo iyo imaanyo ayay qabiilad qabaan dadkaas ayaa dhaxgalay walsaarno ma anfacday waxa cadawga oo sukayna diray aan iska qabanno ayaa lagu xaliyay dadkaas duubabka iyo ayaa dhaxday oo kala noqday kadibna waxaan anagoo saas ay nooga cadday waxaan naga qabtay Muuse Suudiyada Xaaji Muuse kadibna waxaan anagoo saas ay nooga cadday waxaan naga qabtay Muuse Suudiyada Xaaji Muuse nabadgelyada marka loo soo noqdo hadda midda taagan ka hor sidee intaan maxaa dhibaatooyinka nabadgelyo ee dagaalkan uu soo maray sidaase loo xaliyay hadda midda hadda ku sugantiin ka hor kuwii ka horreeyay dadka aad looga sheekeynaysa see markii nabadgelyo daradaas kuma see loo wajihi jiray amba beel kastaba waxaa u xidhneed cad yar ay leedahay aniga ayaa u xidhneed iyada amba dadka markaas ku dhacaysa amba waa laga sabagudbaa faataxada quraanka naloo aqriyo alaliya si aan ugu gudubno meeshaas saas ayay cid walba meeshood ugu xirnay waa maxay qaab dhismeedka maamulka hadda ka jira degmada